marka in la yiri carabi ku tuugso talyaani ku caytan ingiliishna ku faantan meesha waxaad ka ogan kartaa luqadda carabiga sida loo liidayo oo waxa weeye dagaalka lagu jiro ummadana loo diidayo inay bartaan ilaa ahad kasta hadduu barto luqada carabiga waxa u fududaanaya inuu fahmo diinta islaamka inuu barto kitaabkiisa haye ilaa quraanka maxuu ku soo degay luqada carabiga si ummadda aan waxa weeye marka loo barin ayaa waxa la yiri carabiga waa lagu tuugsadaa ingiliishkana waxa weeye waa lagu fantama waa luqad sare haye qofka raba inuu barto marka diinta islaamka oo waxa weeye fahmo kitaabka iyo sunnada waa inuu luqada carabiga barto haye ilaa qofka maxaa ku waajib ah inuu kitaabkiisa barto haye inuu sunnada barto waajib weeye sida rabbi loo raali geliyo oo wax Allah ka reebo aad ku barto wax rabbi faraxad ku barto waajib weeyaan waxay marka culimadu yiraahdaan ma yatimu alwaajib illa bihi fa waajib marka wax shay waajib ka dhigaya in la barto oo shayga uu ka maarmin isaguna waajib weeye sida marka waxaad ogaan qofka inuu barto diinta islaamka raba wa inuu luqada carabiga fahmo haye oo ilaahi subhanahu wa ta'ala kitaabka waxa uu noogu soo dejiyay luqada carabiga waa luqada quraanka oo Allah subhanahu wa ta'ala waxa oranaya kitabun fussilat ayatul qur'an arabiyya liqawmin ya'lamun haye sida ahad ka raba marka inuu fahmo oo waxa weeye quraanka iyo hadiisa fahmo waa inuu luqada barto oo luqada uu soo arkin luqad lagu tuugsado hadafkeenu waxa weeye Allah subhanahu wa ta'ala ina raali gelino oo ku dayano rasuulka sallallahu alayhi wasallam qofka marka raba dariiqa inuu qaado waa inuu barto dariiqa waxa u sahli kara luqada inuu barto haye marka luqada barto waxa baran kara si fudud waxa weeye quraanka iyo xadiis labada